anigu horaan igu sheegay waxaan balan qaaday inaan cidna u jawaabi doonin mar rabo anigu inaan cidna la ficiltamo cidna aan weeraro naarta adiga ma soo arkay dadka diinta qasan miya maxaa dadka ugu mashquule dadka yaa ku dirsaday dadka kumentiyada noo soo qoro waan garanaynaa aawinin waxay ku qurux badan yihiin asturka iyo inay guryaha joogaan wad qaylini waxaad leedahay maxaa hablaha laga rabaa maxaa ku tusay inay isqaawiyaan maskiin baa tahay ana runta kuu sheegay wadaadka rabo inuu ummadan maanta wax ka bedela wuxuu ku qasban yahay inuu la socdo media waxa ka jira ceebna maaha tahdiid iyo goodi iyo dil iyo cabsiin iyo xabsi dad baa hadda ilmeynaya hadalka ilaahay baa la weyn dad baa noo soo duceeya ayakoo ilmeynaya na soo waca oo hooyooyinka ay kowka yihiin hooyo dubay iga soo wacday wallahi inay garanayn iyadoo ilmeynayso ay soo wacday aniga lama weyniye waxaan aniga wada la weyn diinta la weyn bismillaah وعماد لإلهي وينين أبوري مسلم موادير وميسن يا أفكار نقدقي دين شاملة ومحفوظ ومتواتر ومتقي الله يا ماد له مركا حكتا وحن رواينا نمهد عليو دادك تلدا الله سيب حدوقاتي إني ميل مريان وكهولا وعن سيقار ومهد علينا يا dad badan oo iga fog walaalaha wanaaga ka shaqeeya oo ugu horeeyo nin la yiraahdo walaal libaanta aakhira media waan salaamayaa iyo walaal la yiraahdo badbaada janal iyo dadka ku xiran iyo inta wanaaga ka shaqeysa waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo cid kasta oo ilaahay jecel oo allahu rabbul aalamiin qalbiga ku hayso taladiisana wax walbay kala weyn tahay diintiisa ruuxa muslimka ayna la ahayn xaraash iyo xoolo jabanna waan salaamaya cid kasta oo allahu rabbul aalamiin jecelna waan jeclahay taa baan ugu gudbi waxaan rabaa inaan baraarujiyo laba aayadood adigu haddaad muslim tahay shaqadaadu maxay tahay yaa dadka isku xigtaan intaa inaan maanta ka hadlaan rabaa keliya meel kale ma aadayno adigu muslim ayaa tahay amba muslimad ayaa tahay shaqada lagaa rabo maxay tahay oo ilaahay uu kaa sugayo cidda aada walaashaysan ayaa waaye allahu rabbul aalamiin baa noo tilmaamay ciddii alle oo yidhi waa walaal baa walaal ku ah سورة التوبة آيات تضواتن يكوات با إلهي وحو يري سيدا سوسعت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لحدان صفة هدي لغاوة مؤمن ميهد مؤمنات ميهد الله رب العالمين باوحو لي هاي والمؤمنون رقا مؤمنيتا إيا والمؤمنات هوينك مؤمناتك بعضهم قاركود أولياء بعض أيكا إسحقا qaarkood qaarka kale xigaan ayakaa weli isku ah ayakaa iswalaashada qalbiga iskala jiraan maxay qalbiga iskagala jiraan taladii allahu rabbul aalamiin oo nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam alla u soo dhiibay ayay si buuxda u daryeelaan una qaataan hawsha ay qabanayaan maxaa weeyaan koow alla wuxuu yiri ya'muruuna waxay amraan bil ma'ruuf wanaaga iyo quruxda iyo dadninimada iyo shakhsiyada ruuxa muslimka bay ilaaliyaan wayanhawna waxay reebaan anil munkari shayga la inkiray ee xumaha weeyaan saddex alla wuxuu yiri wayuqiimuuna waxay oogaan as-salaa
salaadii ogaan. afar alla wuxuu yihi wayu'tuuna waxay bixiyaan الزakaa sakadana way bixiyaan. shanaad iyo lixaad alla wuxuu yihi wayudiicuuna waxay adeecaan ay af yaqaanaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa. allah iyo nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalamna way af yaqaanaan. dadka maxay heleen? u fiirso. alla wuxuu yihi ulaa'ika kuwa yihiin waa mu'miniin iyo mu'minaat. alla wuxuu yihi sayarxamuhum اllah allah ayaa u naxariisan doona. allaha u naxariisanayo waa allehe ina allaha alle casiizun waa allaha cidu ka adkaanin xakiimun ay xikmad badan ay fal suuban. shayga meeshuu ku mudan yahay ou istaahilo ayuu alla dhigaa. maxay tahay marka hooshaadu adigu? muslimku ma af xuma, muslimku qoraal xun ma soo qoro. anigu horaan igugu sheegay waxaan ballan qaaday inaan cidna u jawaabi doonin. ma rabo anigu inaan cidna la ficiltamo, cidna aan weeraro. maxaa yeelay qofku markuu leeyahay waxaan wadaa taladii alle iyo taladii nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam iyo saxaabadiisii, waa la dhibi, waa lagu cayni, waa lagu hiifi, naftaadaad ku wey kartaa, waan ognahay. aayadda labaad waxa weeyaan suuraة الsaj aayadda 24aad. ruuxu markuu muslim yahay muxuu dar yeelaa? waxaad maqasheen weriye sooma maqlin? weriyaha aad tahay waa weriyehe. weriyaasha laba loo qaybiyaa, saddex looma qaybiyo. weriye waxyu raxmaan weriye ka ah ay kow kitaabkii ilaahay bartay raacay. tacalam kitaab allahi wattabic maa fiihi. nabigu muxuuna yihi markuu xudayfa iyo saxaabada la dardaarmayey? wuxuu yihi tacalam baro kitaab allahi, alle hadalkiisa baro. ay ruux alle af yaqaan noqo. markaad kitaabka alla baratane wattabic raac maa fiihi, waxa qur'aanka ku jiro oo awaamir ah oo nawaahi qaado. almru wannahyu, amarka qaado, nahyigana ka fogow. ifcal laa tafcal. allahu rab اlcaalamiin suuraة الsaj aayadda 24aad. ruuxa kale wuxuu ka shaqeeyaa waxyu shaydaan. naarta adiga maa soo arkay? dadka diinta qasan miya? maxaa dadka ugu mashquule? dadka yaa kuu dirsaday? dadka kumentiyada noo soo qoro waan garanaynaa. waxay dhaheen culimmadayna allah u naxariiste, wax badan bayna bareen oo aad u qiimo badan. waxay yidhahdeen culimmadu kullu inaa'in yandaxu bima fiihi, weel walbo wixii ku jiro burqada. adugu markaad xumaani ay kaa buuxdo iyo shar, waxaa kaasoo burqanaya sharti iyo xumaantii kugu jirtaa kaasoo burqanayso. markii la yidhaahdo hala xishoodo, markii la yidhaahdo fariintu ay tahay haweenka yaa la qaawinin, waxay ku qurux badan yihiin asturka iyo inay guryaha joogaan, waad qaylini. waxaad leedahay maxaa hablaha laga rabaa? maxaa hablaha laga rabaa? maxaa ku tusay inay isqaawiyaan? maskiin baa tahaye anaa runta kuu sheegaya. wadaadka rabo inuu ummaddan maanta wax ka bedela wuxuu ku qasban yahay inuu la socdo miidiyaha waxa ka jira. ceebna maaha, ceebna maaha. haddaad rabto inaad ceeb nooga dhigto, ceeb ma naqayso, munkarna ma naqanayso. waa inaan ka warhaynaa ummadda muslimkaa iyo miidiyaha waxa ka jira. ma wax saxsanaa ka socdo mase wax qaldan? ceeb nuguma aha, middaa ogow. allahu rab اlcaalamiin suuraة الsaj aayadda 24aad muxuu yihi? ruux kasta oo muslima oo muslimada waxay ka shaqaysaa waxyu raxmaan. nimanka aan anigu u mahad celinayo isma naqaano. badbaado janal weliga imaanan arag, asna ima arag. nairobi ku sugan yahay. libaanta aakhira miidiya wiilka yarka ah walaalka iyo ma garanayo. laakiin qalbigaan iskala jirnaa iyo wixii ka badan qalbigaan iskala jirnaa. maxaan qalbiga iskagala jirnaa?
ummadu allihii abuuray inay ka tala qaataan jidkii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inay maraan diintoodana inay ilaashadaan ay dhoortaan wax kale kuma mideysnin Allah wuxuu yiri marka qofka muslimka hooshiis waa tana dhageyso Allah wuxuu yiri waja'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru وكانوا بآياتنا يوقنون ربي وحو ليهي وجعلنا وحن كدغني منهم أئمة هجاميال كوا وحجاميا waxay wax ku hogaaminayaan laakiin taladii ibliis ama talada alle alla wuxuu yahduna bi amrina waxay dadka ku hanuuninayaan taladayna yahduna bi amrina waxaan farnay dadka ay aan doonayno oo aan ka rabno inay la yimaadaan kana sugayno waa goorme maxaa la daba dhigay laba la daba dhigay lamma sabaru markii ay sabreen as-sabr dulqaad bay la yimideen maxaa meesha ka muuqato xaqan cadayna markaa tiraade majaha laga qabsan maxaa kaloo lagu sheegay wa kaanu bi ayatina yuqinun alla wuxuu yiri waxay yaqiiniyeen aayaadkayna aayaadku muxuu yahay waa aayaadka Allah rabbul alamin oo soo dajiyay ee ka kooban xalaal iyo xaraam iyo amar iyo nahy alla wuxuu leeyahay way yaqiiniyeen way sabreen way dulqaateen tahdiid iyo goodi iyo dil iyo cabsiin iyo xabsi ويكويهم بولي الله جل وعلا سؤال أصحابتي إذا يسوي دي سارة بينان كجوابه تدا وحي عيب إيجا ديجين مسجد كمحاد وقول رح ضاع أصحابتي إذا صح وياه أنا قدتك يقحرن ودد إلهي جعل رسولك سنة جعل دينتي سنة جعل وأنا كل عليني إنت إلهي كلا قل ماي ودتك talada alle iyo talada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markaan umada la wadaagna meel fogeeya meel fog si kalimaadkeena iyo awraada umada muslimka aan rabno inaan la wadaagno meel fog gaarsiyo si ay u gaaraan dad badan waxay naga mudan yihiin inaan u duceeyno waana u duceeyaa waana dad diinta ilaahay ku weyn tahay waana dad qaaliya ruuxu markuu ilaahay afiiqaana uu sharfan yahay maalin hore waa lagu dhibay وآد بانوقي رجلي سي قان كاو محويه قان كي واسدان قان كواد وحويان دولة فدرال كصوماليا إن أنا أمني يا أمان أنا ويدي سنين ونجلين دولة فدرال كإن أنا أعررن أو ده هاس فردو دولة فدرال كأي جديد كأي عيدن كأي شرال كأي سيسو إن أنا أهان دونين كنا من نقدونين oo aan amni iyo amaan aan dawladda u doonin xageeda qaybta xigta waxa weeyaan inaan dalkan ka carareynin inaan safar hawsha aan maanta hayo inaan u aado banaanka iyo gobolada sidaan hore ugu aadi jiray waa suurtagal amba inaan beedka ilaahay cibaado u aado laakiin anigoo ka cararaya xabsi iyo dil muqdisho kama bixi doono waxaan ahay odow waageel oo muqdisho ku nool waxaan u taaganahay inaan ku taliyo dhiiga muslimka in laga fogaado daadinta dhiiga muslimka in laga fogaado waxaan ku baaqayaa faamilka iyo qabaa'ilada iyo qoysaska Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hooyo iyo aabe inay gurigooda ay ka bilaabaan kitaabka Ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam in la qaato dalkaana lagu xukumo laguna maamulo waxaan u taaganahay inaan sabro intaan Ilaahay kala kulmay waxaan rabaa inaan ku taliyo dalka dadka doonaya inay maamulaan ummadda dhisa nabigu markii maka laga soo saaray maka qabla al-bi'tha intaan la soo saarin magaalada maka oo waxyigu ku bilaawan nabigu maka ma dhisinay maka dadkii joogu dhisay waana ka hadlaynaa kelimada nabigu markuu Madiina tagay Madiina ma dhisinay dadkii Madiina ugu tagay buu dhisay Allahi abuurtay buu ku xiray
عظمة الله إنه كلا هدلي وحونا كلا هدلي وكلا عظمة القرآن قرآن كويني ديسة القرآن العظيم أي النبي أمد أشياء صحاودي إلهي أقري نوي لقاتين عد كستو النبي صلى الله عليه وسلم باقي سقادة نوي بدبادي ضد هذا المينية هذا الإلهي بالوين ضد نوسو دعية أيكو المينية نصوعة وهو يوين كيكوكيهن هو يدبي يصوع ذي والله إنني قرنين إيدو المينية يصوع ذي أنيق اللموينية وحن أنيق وذا لوين دين تلوين إن ليس دبايانه وحيكو قرآن تاي قرآن كي سنة نبي صلى الله عليه وسلم بمالين قويسكي وكذا الشيء بهذا الحكم يري أسقو مركسن أيو قديج ويمي قديجة وحاسكي عرورتي سي أنت أقبض نيد إبراهيم مركي لجرهبو أنت كلا إذا الشيء أنت أوجهي إبراهيم مركي لجرهبو أنت كلا ذرية النبي قديجة على شيء ورقة المأذير أهايين قديجة أي وعدة مركاسي تري إن أذيرو كالا يقول كان ولالك على هذا ورقة محو النبي كويري كلمات عجيبة كويري وحيري إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وحد لتمدي أحد لبا إيمان إلا هدولي مدور عودي والعلادي والله في والله نبي نبي قال لما سود بين صلوات ربي وسلامه عليه saxaabadii sine qaar kamida waa la dilay ayakoo dhahaaya Allah bay nafta ka baxday annakana jidkaas baan ilaahay weydiisanaynaa asaga awoodo inuu nagu sugana weydiisanaynaa hadaan muqdisho ka carari waayo dawladana aan amaan weydiisa waayo iyo amni yaa ibadbaadinaya Allahu rabbul alamin الله ما أنت معمولة صومالية إسكوها يود أكتهينه ويفهمسنتهينه الله كرك وضح يستو بنكو حرناه أليس الله بكاف عبده إلهي أدونك يسوكو فليه إلهي نمحون يري ففروا إلى الله فرج يفر الله وحور حقي وسو عررا علادا إيا بارتا إيا أرقاق حمركا درائمتان الله وحولي هانيقا نيغفلا أي أني حقي وصو عررا حق إلهي بانو عررينا فرين باروادتك إلهي جعلنا وندره فرين أما دلك جوج أمدي بد جوج وحنكوه هنا عدسي آد وقرح بدن فرين هدية مسجد كا أن كالا هاد لايو أن دعوتك ودنا شنطة وقتي وبحسما مركان خدت كوشة جنو أنك عندنا جوابينه مسجدك وفارق يررق مجلينه كلمات كان غلط ضو صلاتها واجباتك قداشو ذنوبنا صلاتها واجباتك قداشو ذنوبنا وحان ربنا مسجد كان روج إن لقى بدله هل دولار طبعا دولار نما الله صادراي عيدي أودا هايو يا أبي حق نقول له oo na dhalay ayna soo koriyay ee adduunyada ka maqan ay maanta ducadeena u baahan iyo ina ilaahay istighfar u weydiino allana oo xoolo ku siiyay masjidkan baan u rabnaa roob hadaa dalka joogtane nala soo xiriir ay masjidkii roogi gacantaada noogu keen hadaa dibadda ku nooshahayne nala soo xiriir cidda aad u bixisay iyo magacaaga saddexaadna noo soo dir waxaan balan qaadaynaa annakane gogoshi masjidka oo la dhigayo iyo jamaacada masjidka inaan waalidka iyo adigana aan ku weydiino duco iyo istighfar iyo inaan ilaahay ku badbaadiyo dunida meel walba maanta shar baa ka jirta dadka dibadda ku nool waan garanayaa oo wada waayeelaanahay labay u qaybsan yihiin kuwa markay rabaan inay wax bixiyaan dadka soo akhriya yaa yaqaan wadaadku ama maaragtay urur islaamiga ka tirsan yahay ama meel heblo ama yahay argagaxiso ama yahay aniga ma la gaaday moogta
ereyga argagaxiso muslima loo yaqaanaa runta rabaa inaan isheego ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah afka ma kaga dhawaaqday uurka ma ka rumaysay adimaha ma ka samaysay allah warkiisa ma kula weyn yahay muslimiinta dhiigooda iyo xoolahooda ma nabadgelisay ma leedahay diinta ha lagu dhaqmo argagaxisaa tahay waa warka saxda weeyaan warkaasna wuxuu ka yimid Washington aqalka cadaab bixiyay bush uuna ka yimid maalinkii ugu horeysay aan maqlaayay bush ayuu ka yimid ariga ninkii ugu horeeyay warka ka soo baxay bush buu ahaa bushna ciduu yahay waa la yaqaanaa waxa raba marka roogan inaan qamiis helno ama aan sabdi helno waan rajaynaynaa waxaan ognahay dad badan oo shakhsiyadayna yaqaano diinta islaamka jecel anigu ma jecli inaan dadka wax weydiiyo waana leegu yaqaanaa masjidka ilaahay baan waxaan u rabnaa beedka ilaahay gogol qurux badan oo aan soo qiimeynay waxaan rabnaa marka insha Allah taala hal dollar iyo $10 la soo diri maayo iska hayso ruuxi raba inuu hooyadii iyo aabihii wax u niyoodo xaq bay ku leeyihiin maanta adiga adduunyada joogee wax u bixi hooyada iyo aabaha istighfaarna ilaahay u weydii wax u sadaqay wax u baxso haddii laga xanuunsan yahay amba aad muraad leedahay wax la bax bishii ramadaan ay ku soo aaday hadaa tahay wiil iyo gabar isla jiro alla labadooda wax siiyay awlaaduna ay niga soo daahday soo dhiibo ilaahay baan ku baryaynaa waxa doonaysa ilaahay kugu siinaya aad u mahadsantihiin insha Allah taala waan sabrayna walaalaha khayrka ka shaqeeya isma naqaano cid kasta oo khayrka ka shaqeysa ay talada ilaahay la weyntaana waa walaalkay waana walaashay aad baan ni jeclahay waxaana codsanaynaa codsigeena in dhawaan laga soo jawaabi doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh